wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha qaranka iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa soo gabagabeeyay kulan hawleed ku saabsanaa qiimeynta qorshaha wasaaraddaasi. wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa soo gabagabeeyay kulan lagu eegayay dejinta iyo dhamaystirka qorshaha wasaaradda ee sanadkan 2021 kulankani oo labadii maalmood u dambeeyay u socday mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda ayaa waxa ay qaybgalayaashu gurfeeyeen qorshaha dheer ee ay higsanayso wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee sanadkan 2021 waxaana kulankani wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku oo ku soo gabagabeynayay kulan hawleedkaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf ugu horeyn waxa halkaas hadal ka jeediyay qaar ka mid ah su'aalaha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee gobolada dalka waxa ayna ka warbixiyeen waxyaabihii ay isla meel dhigeen iyo waliba qorshayaasha wasaaradda ee ay dejiyeen sanadkan 2021 halkan waxaan ku keenay dib u keenay madal wasiirka guud wixii lagu taray iyo wixii laga reebay sidii ay ahaayeen ayaa barta lagu soo bandhigay qorshihii guud runtii dib ah loo eegay waa la isla faguray runtii waxay noqotay in ay waxaas ka soo baxaan wax runtii wasaaradda wixii lagu talagalay ama qorshihii lagu talagalay in si guud halkaa lagu ansixiyo maanta galinkii hore kii dambe baasalaada ka bacdi markii aan soo noqonayna waxa la talagalay saddex bilood kan ku jirnay bishiisii u dambeysay ku jirno January soo bilaabmay ka dhamaan doona hadii ka dhigo March ka soo dhakeeda qorshihii wixii wasaaraddu soo qabatay inta iyo intan bishan gudaheeda waxa uu qabsooni doona sidoo kale ayadana sidaas la mid ah ayaa looga wada qayb qaatay maadaama wax waliba ay qayb ka tahay qorshaha soo bandhigno waxa ay qorshii ay wax soo gudbiyeen halkaan waxa lagu ansixiyay oo lagu maxayday qowda qayb qaatay iyadana qorshihii wasaaraddu qabad iyo qorshe runtii aad looga soo shaqeeyay ayay runtii la wadaageen inana sidii runtii si habsami leh ayaynu ula qaadanay anoo baahnaa qorshayaasha runtii aynu ilaa khamiistii aad fadhiyay inoo soo fadhiyay la qaadanay inay si tahay inuu qabso runtii saynu u noqono runtii wasaaradda aynu noqono runtii anoo ku gobol ahaan activity-da runtii iyo shaqada wasaaradda ay soo bandhigeen waaxda qorsheyntu runtii wixii rool aan ku leenahay waa ka qaadanaynaa waxaan shacabkana waa gaarsiinaynaa insha Allah billahi hadday wacyigelin tahay kadiskii rabadaan gobolada su'aal lagu weydiiyay oo kale kulankan oo 2 casho noo socday waa kulan aan wax badan ka faa'iidnay ka isuduuyaal ahaan anoo ku hadlay afka isuduuyaasha yaasiin hore u hadlay waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaanu ballan qaadaynaa wixii aan kulankaas ka faa'iidnay inaanu qaban doono dadkayaga iyo shacabkayaga iyo qarankayaga aanu gaarsiin doono ka gobol ahaana aan gaarsiin doono insha Allah mudan wasiir agaasimo guud waxaanu runtii labadii maalmood ayaan halka joognay wax badan ka faa'iidnay qorshihii wasaaradda annagoo isku duuban sidii runtii oo gacmaha haysanaa wax badan ka beddelay wax beddelna ku sameynay wax badan mahantii ku soo kordhinay wax badan nooga qabsoomay runtii qorshaha wasaaradda waana wax lagu farxo runtii inuu soo galo tayminta la eegna siino qorshaha wasaaradda wanagoo isku wada duuban runtii 2 casho oo waqti fiican baynu qaadanay inkastoo muddo wasaaradda joogay haddana oo aan la taliya ka ahaa haddana runtii si guud oo siyaasadda guud waa markii labaad mar hore aynu sameynay performance-kii hore sanadkii hore iyo imaka oo wax fara badan runtii ay iiga biniixeen waxaan u arkaa in marka ka dambeysa qaab professional oo aynu u shaqeynayno dadkuna waa inay sideedaba si shaqo ay u socoto waa in yool jira yoolada hiigsanayso leedahay kaasaan raba inaan gaadho yoolka markaa wasaaradaha guud ama sidoo NDP2 oo iminka laynoo sheegay inuu gabagaba yahay NDP3 la bilaabi doono laakiin sanadka kaa hore aynu ku shaqeynanaa haddii ilaahay ka dhigo sanadkan 2021 waxaynu qabanahay iyo soo kala horeeyaan qaababkeeda
oo aan noqon doonin qof wax looga warrami doono qof kasta ka daragsan yahay aad baan ugu mahadcelinayaa Cabdirasaaq iyo tiimkiisa muxuuha innagana waxaa looga baahan yahay dhammaantiin waaxyaheennii iyo inteenii muxuuha mas-uulka ka ahayd intii kale aynu ka nimidno inaynu muxuuha la sheergarayno oo la shaqayno. dhankeedana agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka arrimaha dastuurka Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf ayaa si weyn ugu mahadnaqday dhammaanba ka soo qaybgalayaashii iyo howlwadanada kulankaasi waxa ayna iftiimisay qorshayaasha wasaaradda ee sanadkan 2020 ee ay gurfeeyeen mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaraddu. kulay labadii cisho in badan way soo joognaa halka waan gaabin doonaa aad iyo aad baan dhammaantiin ku mahadcelinayaa samirka aad muujiseen iyo waqtiga badan ee halka aynu gelinay oo khamiistii ilaa maanta qofta wasaaraddeena ka mid ah hadduu la taliyahay hadduu shaqaale yahayba aan qofna albaabka ka bixin ilaa intii eedaanka casar aynu maalin walba gaadhinay qorshayaal badan baa halkan nooga soo baxay hirgelinteedana laynaga sugay qofkuna hadduu ballan galo waa inuu ballan sideeda uga soo baxaa markhaatiga ugu weyn ana ahaa oo wasiirku saacadihii shaqadu naga maqnaa oo shaqada qaranka hayay ballamo badan oo halkan aynu ku wada galnay kolley warbixinteedu waan usoo koobnay wasiirkan halkan aan ku siinay ilaahay waxaan nooga baryayaa in qorshahaas ku ilaahay u fududeeyo inuu naga dhigo daacadna ka noqda inay qarankooda u adeegaan ujeedada guud ee aynu kala hayno waxa weeyaan qorshaha aynu halka ku qoranay inaanu noqon xibirna cala waraq oo noqdo midaan ku shaqayno juhdiga aad geliseen waayo aragnimadii aad geliseen si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa suugayaasha gobolada oo markii horeysay inoo yimaadeen aynu yaabnay su'aalihayna weydiinay laakiin maanta markaynu aragnay ilaa shalay gelinkii dambe dadka ugu firfircoon ka qayb qaadanay ahaayeen baahiyo badan oo inaan wasaaradda isku weydiin jirin baan halkan isku weydiinay wajiyadeenu waxa hoose markii shirku bilaabmaysi aynu kala qaloonaynayno laakiin maanta waxaan halkan wajiyo badan ka arkayaa dad waqti isku waayay markay shaqaynayeen laftirkooda waqti heleen ilaahay waxaan nooga baryayaa qorshahaas inuu noo fulo. gabagabadii wasiirka wasaaradda xiriirka arrimaha dastuurka Maxamed Aadan Xaaji Cilmi oo kulan hawleedkani si rasmi ah u soo gabagabeeyay ayaa hawlwadanada iyo mas'uuliyiinta kala duwaneed ee ka soo qaybgashay kulankani waxa uu faray inay xaqiijiyaan shaqada dheer ee ay wasaaradda u hayso qaranka gaar ahaan inay laba jibaaraan shaqada wasaaradda ee sanadkan 2020 oo uu sheegay wasiirku inay tahay sanad ay laba jibaarayaan shaqada wasaaradda hiigsiga ay wasaaraddu leedahay ee ku waajahan dastuurka horumarintiisa dadka baridiisa wadaniyadda iyo waxa la wixii xeerar ah ee ka farcama ee waddankan uu leeyahay taasoo runtii aad iyo aad ah mas-uuliyad aada culus qarankuna uu baahi badan u qabo in la xaqiijiyo wasaaradana ay u xil saaran tahay inay gudato waajibaadkeedaas dastuuriga ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo shaqaalaweynaha sanadkii lasoo dhaafay sidii xilkasnimada ahayd ee loo gutay waxaan si gaara ugu mahadcelinaya isuduwayaasha gobolada oo ah rag mudakara oo runtii miisaan iyo karaamaba ku leh gobolada ay joogaan wasaaraddana ku matala oo safiira ka ah waxa weeyaan waajibaadkooda sameeyana ka badan bajetkooda iyo waxa weeyaan runtii miisaaniyaddooda ee iyagu isu xilqaamay inay wax badan mas-uuliyaddooda ku maareeyaan aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaya waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanba himiladaa wanaagsan iyo howlkarnimadaas wanaagsan inoo fududeeyo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa la taliyaasha oo ah runtii rag aqoon-yahana oo aan ku bakaylin aqoontooda voluntary ugu shaqeeya wasaaradda. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.